waxaanu halkan ugu nimid inaynu si niyad sami ah ku sugantirno xulkeenna, in aynu siino dhiirigelintii ay naga mudnaayeen. runtii khaasatan degmada Gaalkacyo waxay si dhow ula socotay intii xulku ugu jiray tababarka, ayadoo booqashooyin kala duwan iyo xiriir bala lahayd ilaa heerku soo gaaray maanta oo gabagaba ah. waxaanu leenahay wixii dardaaranna horeyna waanu u siinay, haddana waanu siinaynaa. waxaanu jecelnahay insha allah inaanu xulka marka koobaad niyadeeda inaanu ku labnay. waxaanu ugu talagalnay oo runtii rabnaa maanta halkaa ku wareejino bokod mani yar oo aanu ugu talagalnay inay maaragtay ay ka dhigtaan jiscin lacag $1,000 oo degmada Gaalkacyo ka timid, iyo annagoo usoo fududeynay gaarigii baska ahaa oo ay ku safri lahaayeen oo ay ku geli lahaayeen safarka iyo agabkii caafimaadka. waxaa intaas insha allahu tacaala aan uga hari doonin xulkayaga, maadaama Gaalkacyo ay tahay caasimadii gobolka. waan jeclahay dhammaan degmooyinka gobolka Mudug inay garab istaagaan xulka gobolka. waxaanu rajaynaynaa inaad guul kala soo noqon doontaan Garowe insha allahu tacaala. Gaalkacyo uu koobkaas kusoo noqon doono, waanu idinka fadhinaa, waana idinku naqaanaa maanta markaan indhihiina hadda eegno iyo aqoonta u leenahay iyo awoodda ay leeyihiin xulkani. insha allahu tacaala inaad guushaas nagu soo celisaan baan rajaynayaa. martiqaadka wanaagsan iyo sagootinta ay isugu dareen xulkii kubadda cagta gobolka Mudug oo halkaan muddo 20 cisho ka badan ku xareysnaa gobolka Mudug si uu ugu diyaar garoobo tartankii ka furmi lahaa magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland. waxaan leenahay waa idinka guddoonnay taakuladii aad xulka aad ku taakuleyseen, waan idinkaga mahad celinaynaa qada sharaftan aadka u wanaagsan ee aad ku sagootinaysaan xulka gobolka. mas-uuliyiinta dowladda hoose oo runtii gartay inay qadadan maanta idii sameeyaan, runtii farxad bay ii tahay, waana dhiirigelin ka mid ah dhallinyarada in loo badiyo weliba kulamada qadada iyo cashooyinka in lala kulmo. waxay tahay moralka barkiis, niyadoodii baa kor u dhismaysa, farxad bay ka dareemayaan, waxay dareemayaan inay leeyihiin back up, dad inay ka dambeeyaan. marka aad baan kaga madaxcelinayaa mas-uuliyiintiina gartay in dhallinyarada maanta aanu wada qadeyno. runtii haddaan wax yar ka taabto dhallinyaradan, runtii way diyaarsan yihiin, xirfadooda iyo farsamadooda intaba way diyaarsan yihiin. haddii guushu waa meesheeda, laakiin intaan arkay dadaalkooda iyo siday u soo jeedaan rabitaankooda ciyaareed iyo mas-uuliyadda ay iska saareen gobolka, runtii waa waxaan ku ammaanayo aan ku arkay. aniga iyo insha allah macallimiinta kalena wixii awoodeenna ah oo aan qaban karno oo aqoonteenna intay gaarsiisan tahay baanu insha allah samayn doonaa. guul baan idiin rajaynayaa dhalinyaro. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qada sharaftan, maamuuskan, sagootintan quruxda badan ee degmada magaalada Gaalkacyo ay noo samaysay, oo maantana wakiilka uu ka yahay duq-xigeenka magaalada Gaalkacyo. runtii qadadana waa dhiirigelin, waa ambabixin, waa duco. waxaa ilaahi subxaana wa tacaala ka rajeeyaynaa quruxda iyo qiimaha howlkan aan fadhino iyo dhallinyarada xulka kubadda cagta ee gobolka ee ka muuqata, in ilaahay subxaana wa tacaala safarkan ambabixiisa soo laaladkiina midaan mid ka qiimo badan isugu soo laabano, annagoo faraxsan isugu soo laabano, waajibaadka iyaga macallimiinta ahaa masaarana aan gudano, qof walba waajibka saaran oo guto. guddoomiye, dhallinyaradan sida macallin Abshir idiin sheegay waa ciyaartooydii xulka kubadda cagta gobolka Mudug. kumaanan xulan qabiil, kumaanan xulan degmo, kumaanan xulan koox, kumaanan xulan garbeyshin. waxay ku yimaadeen aqoontooda, kartidooda, tayadooda, dadnimadooda iyo inay mateli karaan gobolka. runtii waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwii ugu qiimaha badnaa ee gobolkan mateli lahaa.
waxaan aaminsanahay haddii kartidooda xirfadooda iyo dadnimadooda ilaahay subxaana wa tacaala la garab galo koobkaani waynu keenaynaa insha allah. waxaan codsanayaa marka mar labaad iyo mar saddexaad in mar walba ducada nala garab taagnaataan, laabtayada ilaahay nadiifiyo, wada jirka iyo midnimada ka shaqeyno, guulisaan u gaari lahayn aan ka tashano, aan ka tagno tafaraaruqa, u guurno sidii aan koogu keela insha allah dalili kariim. idinkuna ka degma ahaana garab taagnaada, gobolku hana garab taagnaado. ilaahayna waan ku kalsoonahay, xirfadda dhallinyarada halkaa fadhidana waan ku kalsoonahay, teeduna waa tii rabbi. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. waxaan kaloo sidoo kale u mahad celinayaa hoteelkan hadda aan joogno oo mar walbaba ka qayb qaata horumarinta dhallinyarada iyo isboortiga iyo deegaankaba. aad baan iyaga iyo maamulkoodan ugu mahad celinaya. inta markaa halkaa uga gudbo xafladan iyo barnaamijkeedii waa laga hadlay. waxaan rabaa inaanu dardaaryan usoo jeediyo xulka gobolka mudug oo aada moodi maantayto inay nashaad iyo quruxi ka muuqato, inaad ka qayb gelaysaan tartankii gobolada puntland oo ka kooban 9 gobol oo loo kala qaybiyey 2 qaybood. ugu yaraan 9kaas gobol waxay u imaanayaan mid walba inuu qaado koobkaasu kusoo talagelaya. 9kaa gobol baana ka mid tihiin. marka idinka waxaan idinka rabaa in sida macalinku hadda idiin sheegay nidaamkiinii iyo tababarkiinii iyo xifradiinii inaad soo jeedisaan iyo kala dambeyntiina administrationkiini wixii ilahay idiin calfa meesha waa kasoo helaysaan. degmada iyo gobolka iyo deegaanka iyo dadka kasoo jeedaan oo gobol ahaan kasoo jeedaanna dabcan dee cayaar kastoo aad leedihiin iyo game kastoo aad leedihiin waa idiin imaanayaan. dhiirigelintuna garowna waa idinkaga horeysa, halkaana waa inala joogaa. laakiin waxaa la rabaa inaad hormuud u noqotaan tartanka puntland ka soconaya gobolka keliya oo ah akhlaaqiyan iyo banooni ahaanba inaad dhisan tihiin. dhammaan waxaa halkan uga mahad celinayaa cid allaale cid soo qabanqaabisay tartankan oo ugu horeysa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, xiriirka kubadda cagta puntland, madaxweynaha dowladda puntland oo isaguna qarashkiisii iyo ama bixinaya iyo koobkan ballanqaadkiisii iyo abaalmarintiisii iyo isaguna bixinaya, iyo ciddii guddigii farsamada iyo garsoorkii iyo dhammaan ciddii qabanaysan uga mahad celinayaa. idinkana guul iyo goboni baa idiin jeedinaya. in sagootinta quruxda badan loo sameeyey dhalinyarada insha allahu tacaala ay u noqoto dhiirigelin, meeshaasna ay kala yimaadaan guul insha allahu tacaala u qalanta gobolka mudug. waxaana ugu muhiimsan waxa weeye 2 muhiim oo ah dibishiliinka iyo kala dambeynta. guusha waxa weeye mataqaanaa waa wax qoran weeye mar walba, laakiin waxaa ka muhiimsan wax walba akhlaaqda iyo sida laisku maqlo oo loo wada socdo. marka insha allah tacaala waxaan leeyahay warkii iyo dardaarankii inay ku filan waa la yidhi. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa maamulka degmada oo qeyb weyn ka ahaa sagootintiina. ugu horeyn maamulka degmada uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka degmada ahna kusimaha degmada shaafici cabdulaahi xaashi, xogayaha degmada. waxaan leenahay mudanayaal, mas-uuliyaddiinnii iyo tii deegaankan aad inaga saarnaydeen baad gudateen. garab istaaggiinna iyo taageeradiinna mar walba iyo dhiirigelintiinna ma ahayn mid kala har ah leh muddadii aanu diyaargarowga ugu jirnay hawshan. maanta oo aada noogu talagasheen xafladdii qada samaynta xulka iyo sagootintii weliba aad ku bixiseen qarash, waxaan leenahay taariikhda ayna xusi doonta. dad aan la ilaawi karin baa tihiin. waxaan kaloo isna aan mahadcelintayda si gaar ah ugu dirayaa duqii magaalada isagoo safar naga maqan, injineer maxamed cabdinuur, oo isaguna taleefonka nagala soo hadlayay mar walba oo wax khaldamaanna wax saxayay. waxaan leenahay jazaaka allahu khayr. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasimaha isaguna na dul taagnaa oo noo imaanayay shararkayga nagala qaybgelayay, agaasimaha madaxtooyada. waxaan kaloo rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo maamulaha hotel royal oo mar walba muddadii ay dhallinyaradu tababaranaysana biyahooda iyo kawarqabkooda iyo taakuladooda iyo garab istaagooda isna bixinayay, oo axmed kismaayo shaksi aan la ilaawi karin. jazaaka allah khayr baan isagaa leeyahay. cid kastoo na soo taageertay, cid kasta oo dhallinyarada soo garab qadatay waxay la mid tahay inay gaalkacyo wax u qabatay, waayo dhallinyaradu waxay matalaysaa waa xulka gobolka mudug.
ma aha xul dee si magaranaysaa marka loo fiiriyo waxa mas-uuliyadooda u saaran tahay dadka gobolka mudug oo jooga hadday ganacsata yihiin hadday shirkada yihiin hadday maamul yihiin maamulka qeybtooda uu ka soo baxay. waxaan kaloo rabaa halkaan uga mahad celiyo guddoomiyaha guddiga taakulada cabdiqani cusmaan ahna guddoomiyaha dhalinyarada duud mudug oo mar walba u taagnaa muddadii guddigan aan u magacaabnay guddoomiyahana guddiga u ahaa habeen iyo maalin dhalinyaradaas noloshooda ka waqabkooda diyaarintooda in ay helaan saxo wanaagsan oo magaalada laga saaro fikirkeeda ninkii iska lahaa. waa uga mahad celinaynaa guddoomiye cabdiqani oo ka bilaabay shaqadan meel aada u hooseysa maantana meesha aada quruxda badan oo waktiga iyo juhdiga iyo dhaqaalaha la geliyaba keenay isagoo gacantiisa kusoo aroorayay. waxaan leeyahay taariikhda cabdiqani ku xusuud doontaa. maamulkeena dowladda hoose oo inoo muujiyey inaan inteena maanta aan isku nimaadno kala shaqeyno gobolka mudug xulkiisa siduu u hormaro iyadoo oo xulka gobolka mudug oo hadda anaga noo muuqda ay yihiin xul aada aan ugu jecelnahay inay noo sooyin doonaan guul aada u muhiim ah. arrintaas oo wax badan laga shaqeynayay waxaan rajeynaynaa inaanu arrintaas aan ku guuleysano insha allah inaanu koobkayga soo hoyino waana jecelnahay dhallinyaradeedu inay noo sooyin doonto inay arrintaas aan ku guuleysano insha allah bilkariim. waxaan jecelnahay fadhigiisa kale oo aan iskugu nimaadno kooxdayada gobolka mudug ayagoo koobkii noo wada inaan insha allah bilkariim inaan kulmi doono sidaasaan jecelnaha haddii lahaa idmo.